ayada waxay ka haasaa dhaxalka waxaan leenahay walakum idinka raggiinaano waxaa idiin sugnaaday nisfu maa shay kale barkiis ayaa idiin sugnaaday taraka ay ka tageen aswaajukum xaasaskiinna naagtaada hadday dhimato maalkeeda kala bar ayaad ku leedahay goormahe in lam yakun lahunna haddaysa dumarka lahayn ama aysan ka tegin waladun carruur hadday carruur lahayn naagtaada dhimatay ama adiga ha kuu dhasho ama nin kale ha u dhashee maalka ama hantida ay ka tagtay kala bar ayaad leedahay fa in kaana hadday ahaadeen lahunna dumarkii waladun carruur hadday carruur u joogto ka waran falakum raggiinana waxaa idiin sugnaaday arrubucu maalka 4 meela loo qaybinayaa 1 meel ayaad leedihiin mimaa kii taragna ay ka tageen dumarkiina wey goorma wey markaas min bacdi wasiyatin yuusiina bihaa dardaana dumarkaas ay dardaarmeen kadib markay la bixiyo dardaarkaas way ama oo daynin dayn lagu lahaa daynta lagu lahaa haddii laga bixiyo oo dardaaranka ay sheegeen la muxuu ahaa la fuliyo oo islaamihiina gabadha dhimata ama naagta kaa dhimata aysan lahayn carruur maalkeeda 2 meel loo qaybinayaa 1 meel adaa iskale waa khatar waaye kawar waa khatar yaa hanti fiican waa adoo shiida waxa waaye waa kaasaa ka soo asii gelin macallin hadday gabadha awlaad u joogto kawar awlaadaas adiga ha kuu dhasha ama nin kale ha u soo dhasha haddayba awlaad joogta awlaadaasi maalka inaad qaadato kala bar way kuu diidayaan iyaga ayaa qaadanaya iyaga maxay qaadanayaan mataqaanaa iyaga baab kale waaye laakiin adiga waxaad ku leedahay maalkaas 4 meel loo qaybinayaa 1 meel ka mid aad leedahay yaa naagahana waa soo wadaa iyagana maanta halkaas aynoogu ogiya casharkeenna intay ila fahamtay waad ku mahadsan tihiin aayadda iyadoo dheer kiskisaan soo qaadana insha allahu tacala hadda maanta waxaan ka hadalnay ninkaan ka hadalnay berri gabadhaan ka hadli doonaa nala socdo dhaxalkaa laga hadla dhaxalka very important weeye asbaabul irthi iyo shuruudul irthi iyo arkaanul irthi iyo almaanicu min irthi iyo tacriifu shir waxaas dhan waa soo wadnaa macana hadda maanta laakiin aayadda ku furfuranay waana mahadsantihiin